الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا مرلوات يمرسدحات waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa dhammaan martidan sharafta leh ee waqtigooda noo soo huray soo qaabilay xafladan oo u dhignay ardaydeenii ka qalin bedelatay ama u gudubtay ka talaabtay fasalkii koowaad ee rawdada una tilaabtay fasalkii labaad. waxaan rajaynayaa insha allah inaan ku guulaysatiin. waxaan u mahadcelinayaa allah taagay cirka bilaadiilaan sumay dhulka bilaadiilaan fidiyey dhulka kuna hareereeyey buuro ka jeexay webiyaal iyo bado. mar labaad waxaan u mahadcelinayaa martida culimada haweenka sigisaman insha allah. waxaan rajaynayaa inaan u mahadceliyo telefishinka SBC oo gacan weyn SBS afwan iyo dhammaan martida. intaas kadib waxaan rajaynayaa xanaanada Riyaad Saalixiin inay sanad jirsatay oo la furay Oktoobar 2017 kuna asteesneed 1437 bishii Muharram 16 maantana waa Muharram saan u malaynayo. marka intaas kadib xanaanada waxay soo martay Riyaad Saalixiin maraaxil badan oo kala duwan. hadda waxay taagan tahay alxamdulillaah heer aan soo saarnay dufcadii koowaad ee farta baratay inkastoo weli ay wax lagu harsayn. dufcadaani oo ka koobaneed 11 cunug 9 wiil iyo 2 gabdhood. intaas kadib xanaanadu waxay qaadataa 14 jir ilaa 4 jir 4 jir ilaa 14 jir. ilmaha markay 4 jiraan ilaa sanadka 7 waxay ku jiraan qaybta xanaanada. xanaanada markay ka gudbaan waxay leedahay Riyaad Saalixiin qayb dugsi hoose dhexe qaybta hoose dhexe ee u gudbayaan ee duruustooda ka soo wadaan si hadhow markay madaaris kala tagaan oo cunugii u noqdo cunug bees walba ka dhisan shareeca haddii la dhaho maadi haddii la dhaho dhinac walba ardaydeena loogula tartamay dhinacyada kaleeto. dadka Soomaaliyeed xanaanada faa'iidada leedahay aad uma soogeen sanadihii hore. xaqiiqadii markaan bulshada dhahno waxaan jeclahay xanaano inaan furto ama aan macallimad ka noqdo way ila yaabi jireen xidhiidhina xanaano ahaan cunugeyga waa inaad subaxdii geeymaan haddana cawadaas waxaas ma dhacayso. cunugu wuxuu ku baranayaa xanaanado kow inuu dadka wax la qaybsado oo bulsho ku dhex jiro oo bulshadaas la noolaado hooyanimada ka baxo. midda labaad cunuga karti iyo adeeg ayuu ku yeelanayaa guriga hooyo markuu joogo uu ku yeelan lahayn. maraaxil badan iyo dhinacyo badan uu cunugaasay ka dhismayaa oo dhan walba ha noqotee. walaalayaal intaas ayaan rajaynayaa inaan kalimaadkayga ku soo gabo. insha allah xanaanada Riyaad Saalixiin waxyaabo badan ay tiigsan rabto ayaa jiro. hadeertaan waxaa qoraalkeeda inoo socda qayb ah jiif boarding oo loo samaynayo wiilasha. aan rajaynaynaa inaan qabano wiilasha boarding oo qayb jiif waxaa kaleeto xanaanada insha allah aan rajaynaynaa inaan degmooyin kaleeto ka furno oona samayno gabdhaha iyo wiilasha laba guri aan u kala kirayno. guriga wiilashana qayb gabdhahana qayb insha allah anagoo ilaalinayni xeerdaabku allah noo sameeyey kuna xadgudbaynin caruurtaas dhaqankooda si ay u ilaaliyaan. gabdhahana gabdho u dhigaan wiilashana wiilal. insha allah waxaan rajaynayaa bahda reer Riyaad Saalixiin inay isbedel la yimaadaan ee jiilkay soo saarayaan ka bedelnaadaan caruurta kaleeto. xaqiiqdii aad ayaan ugu farxaa markaan arko cunug meeshuu raba dhigtee wallaahi xifdisan qur-aanka shacaa'irta islaamka ka muuqato dareemi kartid meeshuu ka taagan yahay. wax walbana waa hooyo aabba ma ahan. hooyooyinkeena waxaan idinka rajaynaa inaa iska dhaaftiin waxaan ku mashquulsanahay iyo ficilkan baasoo nagu jiro waxyaabo kaleeto iyo guri iyo alaab. ogow inaa madaxweyneyaal soo saaroosid. ogow inaa jiil cusub
بدلايا أصحابتي إيه تابعيتي إلى سوساتي لقاء بعين هو يوليكو وحنقول الدارمية كدي قويل كارا هل إيه هكذا كدر بيرجيفا